sida ay sheegayaan warar soo baxaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe ku aadan in wadaadka Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur afayeenkii hore xarakada Al-Shabaab in xabsi guri laga dhigo si la mid ah Xasan Daahir Awees oo dowladii Xasan Sheekh Maxamuud xabsi guri laga dhigay. qorshaha dowladda ay ka falceliyeen xubnaha oo ololeynaya sii deynta Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa waxa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin talaabada dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso. waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in xarakada Al-Shabaab ay beegsadaan Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo kamid ahaa aasaasiyaashii xarakada Al-Shabaab. shakhsiyaadkan ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay kala hadleen sidii loo sii deyn lahaa Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa bishii December 2018 laga soo xiray magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii uu isku soo taagay xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana magaalada Baydhabo ka dhacay dibadbaxyo lagu soo horjeeday xarigiisa. tani markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax war ka soo saarin xariga Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur waxaana lagu dhaliilay madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen inuu ku fashilmay sidii loo sii deyn lahaa Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ahaa afayeenkii hore xarakada Al-Shabaab.